munaasabad lagu xusayay maalinta nabadda adduunka ayaa lagu qabtay magaalada Caabud Waaqi waqooyiga gobolka Galgaduud. munaasabadan oo ahay miseer sida loo soo agaasimay waxa soo qaban qaabiyay ururka dhalinyarada magaalada Caabud Waaqi waqooyiga gobolka Galgaduud oo gacan ka helaya hay'adda tubta nabadda Soomaaliyeed ee Peaceline. waxaa ka qayb galay munaasabada mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Caabud Waaqi qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan magaalada Caabud Waaqi waqooyiga gobolka Galgaduud oo isugu jira ururada dhalinyarada, ururada haweenka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada. ugu horeyn waxaa daafuray munaasabada kana sheekayay ahmiyadda ay leedahay nabadda gudoomiye ku-xigeenka degmada Caabud Waaqi Liibaan Cabdi Cali. waa maalinta nabadda adduunka. degmada Caabud Waaqi runtii dhalinyaradan quruxda badan baa ka soo toosta aqoon-yahanka. waxaan dareemaynaa mar walba inay jirto colaado kooban ima ka dhaca daafaha deegaankeenna. dhalinyaro kasta ima waddan kasta dunida ka midana waxa nabadda maaragtay udubdhaxaadka u ah waa dhalinyarada. waxaan rabaa anoo maaragtay hadalkayga soo koobaya inaan maaragtay dhalinyarada degmada Caabud Waaqi aan ugu baaqo in aan ka wada shaqeyno nabadda. nabad baa naas la nuugale Soomaalidu bay tiraahdaa. anagana na anfici doontaa. muhiimadda ay leedahay nabaddu qof walba oo dhalinyaro ah maanta halkaan fadhiya oo aqoon-yahana uu runtii uu ka dheragsan yahay. taas marka waxay u baahan tahay inaan annaga deegaankeenuna nabad ku noolaado, kuwa dariska nala aan nabad kula noolaano. waayo maanta Soomaaliya oo dhan baa waxay tahay waa one family, waa dad maaragtay hal muslim ah, waa dad wada dhashay, waa dad ehla. sabab ah hadda la dhigi karo isku dagaali karaan ama ay isku layn karaan ama dhaxdooda colaad uga iman kartaa waxaan shaydaan ahayn ma jirto. marka inaan annaga ka degmo ahaan ka dhalinyaro ahaan inaan maaragtay galmudug ima galgaduud ima waqooyiga galgaduudba aan u noqono dhalinyaradeenaan udubdhaxaad. wax kasta waxaa laga yaabaa fikrad kasta oo dunida maaragtay ku soo kororta qof baa keena. socialka media hadda aan isticmaalayno Facebook nin baa maskaxdiisa ku fakeray inuu adduunka oo dhan ku mashquuliyo bahalka yarka oo qof walba maanta daawanayo. marka maskax fresh runtii oo arinta ka shaqeysa oo keenta maskax mataqaana qorshe gobolkan nabad looga dhalin karana dhalinyaradeenna waa laga helayaa. marka waxaan rabaa dhalinyaradu inay ka shaqeyso nabadda si gaar ah waliba ay deegaankooda ay maaragtay uga shaqeeyaan. annaga ku nool nabadda mustaqbalkana waxa weeye haddii Ilaahay iska kindaayo 60 sano dambe waxa laga yaabaa oo Ilaahay hadduu iska kaadaayo waxa u baahan tahay meelaha ku noolaatay oo nabada oo noloshaadu maaragtay ay ku noolaato. qof moogta qofna kuma noolaan karo colaad sababtoo ah waxa la yiraahdaa nabadda waxa garan kara qofkii colaad ku soo noolaaday. dhankooda sidoo kale waxaa ka hadlay qaar ka mid ah bulshadii kala duwaneed ee ka qayb gashay iyagoona si isku mid ah u bogaadiyay doorka nabadda dhalinyarada iyo sidoo kale cid walbana ugu baaqay in mar walba laga shaqeeyo nabadda. way sheegeen nabaddu inay tahay waxa ugu muhiimsan ee bini'aadamku ku nool yahay. kullayba xafladan qiimaha iyo qaayaha leh ujeedada laga leeyahay waa mid cad. qabanqaamisteeda iyo in maalinka laga muujiyo degmada Caabud Waaqina waxa iska leh ururka dhalinyarada iyo hay'adda Somali Peaceline. marka dhamaantiin mar labaad way ku celinayaado waxaan kaga hambalyeeynayaa maalinkan qiimaha iyo qaayaha leh. si guud marka haddaan u taabto horta maalinta tan qiimaha iyo qaayaha leh ee la yiraahdo maalinta nabadda adduunka waxaa la aasaasay 1945 December. ilaa iyo waqtigaasna waxa lagu gabagabeeyay dagaalkii weynaaday adduunka markii la arkay qasaarihii iyo dhibtii iyo dhaawacii ka dhashay 60 milyan oo qof ayaa ku dhimatay. 200 milyan ku dhawaadna waa ku barakacday oo deegaanadoodii iyo dhulkoodii ku kala wareegeen oo wadamo kale u kala carareen. sidaa daraadeed ayaa markaa waxaa la go'aamiyay guddi amni iyo dad ka shaqeeya amniga saan adduunka dagaal kale uga dhicinin oo dad loogu leyn.
saadaradeed ilaalinta amnigu waa ilaalinta nolosha qofka waa ilaalinta nolosha dhaqaalaha waxbarashada waa caafimaadka haddii amni la waado oo nabad la waado wax la helaya male hase haatee maalinkan waxaa la aasteeyey 1981 baa bisha tan 21 December ayaa loo aasteeyey inay noqoto maalin laga xuso caalamka iyadoo lagu naaloonayo laga fakarayo in nabadgelyadu ay heer sare tahay nabadu ayada ayaan ku noolnahay ayadu naguma noola wayna fiican tahay nabada in laga shaqeeyo laga qayb qaato aniga shakhsi ahaan hadda adigu waxaan muleynayaa adigu 10 bari meelahaas ku dhawaad maalintii wax dhaceen ilaa maanta u dambeysay waxaan ka shaqeynayay nabada oo u soo ged fariistay intaasna waxaan la kulmayay caqabado fara badan nabaduna iskama timaado ilaa waqti fara badan la geliyo marka hadda dad dhalinyaro baa tihiin oo qiimo badan dadkuna ma wada xumo ee shakhsi ama laba xun waxa taray garaysana ma isku daydaan inaan waqti gelisiin nabad haddaan ku talagalno intaas qalbi iyo niyad ahaan aanu dhiraahno waxaan keeni karnaa nabad Soomaaliya oo dhan baan ka keeni karnaa laakiin maxaa muhiim ah inaan daacadnahay daacadnimo aan u wadno anigu ka suldaan ahaan kii hore oo laba kale nabadeynteeda Saleebaan iyo beeshii kale walaalaheen ahaa waan ka soo nabadeeyay miraheedina waad aragteen oo dhuusmareeb waa iyada loo fadhiyo waxaan iigu xigta midtaan tan odayaasheedii waa bilaabeen meel fiican bay maraysaa kogashuna caabud waaqbay taallaa sidaas la alligeed darisku meel kastoo ay tahay ama ka dhalinyaro ahaan inaan ka qayb qaadanno nabadana aan adkayno nolosheenna iyo nafteenna iyo darisnimada iyo wax walba waa ku jiraan nabad waa ma dhaafaan dheef iyo wax gooye leh nabad waa ma dhaawaca dhibta looga nabad galo nabad waa dhisaha bulsho dhaawadeedu adag tahay nabad waa dhaqaalaha dhigaalka iyo waxbarashada nabad waa dhammaan nolol iyo dhidibka xoojiya dhaqnaantiisa aadane nasrigeedu waa oday nabadoon ku magac dheer nasrigeedu waa oday nabadoon ku magac dheer naxligeedu waa qori nacaskaan aqoonine nin rageedka waa u nolol horta dhalinyaroy waxaan idiin sheegayaa nabaddu inay idinka falanto idinka bilaabato idinku dhammaato haddaad tihiin caawa dhallinyaradii 6 xaafadood oo caabud waad inta hotel la isugu yimaado wax badanna waan sheegay anigu runta rabaa inaan sheego oo biyo lagu cabba in lagu kala tago nabad bacaaw laga shaqeynaya dhoo muhiim ma ahan ficil baadeerayaal wax tara eedayaal ficil baa wax tara maandayaal ficil baa wax tara ilmaadeerayaal ficil baa wax tara ayayooyin ficil baa wax tara inta baan ugu weydiin ahay waana idinka weynahay waxa idin sheegayaa qof hadduu dhinto kan dhintay waa dhintay waxba tari maayo kan nool oo dilay maca waa ka fiican yahay kii dhintay sama ogidin qof dhintay waxbuu tara qof nool waxbuu tara qof dhintay waxba ma taro haddii nin dilo walaalkiis baa waxa laga yaabaa inuu wax fiican taro inuu wax fiican sameeyo in khayr qalbigiisa ku jiro in nabad qalbigiisa ku jiro inuu asagu waxba dilayn walaalo waa ku baryayaaye mid hadduu mid dilo mid ka nool hadiline kan nool waxa tirada nabad aan ka shaqeyno soo dhaweey asagaasa wax ku taraya asagaasa walaalkaaya asagaasa adduunka ku nool wallahi been ku sheegmay qof dhintay waxba ma taro waa tigay khalaas halkaas adduunka ugu dambeysay hadda 10 disho 10 walaalka 100 hadaa u dishana walaalka guriga ku soo noqon maayo waa tigay 100 ka dishana dambigooda adu dhakada ku saaran yahay lagaana cafin mahayo kii dilay ma dilin kii dilay bataqaanid qabiil baan wuxuu dilayaa khayr maahan run ina isu sheegtaan baa fiican wali dhalinyaro isla socota oo godadka maleesiyaad isugu jiraan iyo inta kooxaha inta u tagta ka soo dhahaysa war ka soo baxa halkan oo horta isu keenkeena kaalaya maxaa tabaysaa oo inta odayaasha horkeenta dhahaya qabiilkaana waxaan siiya hadii kale magaalada waa idin kaga tagaynaa annagana layn maysaan ma arag iraad aadan cali TV-ga idaacadda Sooyaal magaalada Caabud Waaq